gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa nasiib darro ku tilmaamay go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku joojisay cilaaqaadka dhinaca ciidamada ee Imaaraadka Carabta waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka abaalka dartay caawimada Imaaraadku u siin jiray Soomaaliya waa lagu yaqaanaa madaxda Soomaaliya in mar kastaba gacanta wax siisay qaniinaan waa caado ay yaqaanaan tii bay ku celiyeen muumay kala harin dalka Imaaraadka oo ahaa dalka qura ee Carbeed ee inoo furay khadka markii dawladda Siyaad Barre burburtay ee Soomaaliya isku qasantay baasaboorka ogolaaday baamisharigeeni furay oo maanta aragtaysa inta baamisharaga joogta takadihiina camiray haddana macaawino ugu daray Soomaaliya hada sheegta ka sheekeynayay magaalada Cabdigaaska Garowe maamula iyo wixii lagu sameeyay waxaan u jeedaa dadka Imaaraadka dadka Soomaaliya shanta Soomaaliya way degaan shanta goobood ee geeska Afrika annagu waxaan nahay dadkii la bilaabay aabayaashood markii gacaanku naga eriyay laga qaxay mutacalimiinteeda iyo dadka halkan ku baxsanay waxay Imaaraadka ilaa Sheekh Said la shaqeynayay wasaaradda ka shaqeynayay edebta lahaa wanaaga badan lahaa iyo walaalnimada in kala socdaan anna kala saartaan Soomaaliya aad ku isticmaalinay Soomaali Djibouti waa aragtaan Soomaali Kenya waa aragtaan Soomaali Ethiopia waa aragtaan Soomaali Italia Soomaaliya anaga Somaliland baana dhibaatada ay geysay iyo foolxumada ay geysay naganama wakiilna ma aha dadka Soomaaliyeed raaliidka yihiin wadamada Carabta shaqiiqnayo gaar ilaa Sacuudiga waa dad aan walaalanahay xumaan oo dhaxaysa ma jirto insaan loo galana oo dadka iyagoo dawladda ahayn waxaas oo lacag siiseen waxaas oo tababar siiseen maanta taayid ku abaal gudayna warka xunay lama qaybsan marka waan shaqalaan mid ka nahay ceebtaasan waa ceeb ku kooban madaxda siyaasiyiinta ee maanta ka talinaysa Soomaaliya Injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu ka warbixiyay socdaal muddo 5 maalmood oo ugu maqnaa wadanka Ethiopia arrimaha dalkeenu maan u tagay wixii noo qabsanay wax Soomaaliland faa'iido ah weeye wax ka salama ka shifo laakiin guul baan ku soo dhamaaday dana Soomaaliland baan u tagay madaxweynaha waxaan ku booriyay inuu isna safar culus oo ku tagaa marka madaxweyne ra'iisul wasaare uu sameeyo dawladdiisa haddii ay dhaho si loo adkeeyo xiriirka Soomaaliland iyo Ethiopia ee soo jireenka ee jaarnimada ah ra'iisul wasaare qodobada fiican buu qabtay daraato xishiriyay diblomaasiga deganaa Ethiopia oo ku jira safiirkeeni ku jiro markii horeysay hadda safiirkeena meel kasta oo safaarada lagu casuumaa waxaad aragtaa kor loo qaaday statuskiisii gudoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu nasiib darro ku tilmaamay hadal boqor Cismaan oo Maxamuud Burmadow uu ka jeediyay degmada Carmo ee Puntland oo ku sheegay in la kala qaado ciidamada Somaliland iyo Puntland ee isku horfadhiya deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool wallahi arintaas waa arin xun weeyaan inuu ciidamada dalkoodii joogay ilaaha ka noqda meel shaqabata deemaha foolxumeed isagu ma ra'yigiisu waa cabiro marka waxaan leeyahay kuma habooneen Cismaan boqor Cismaan kuma habooneen inuu iyagu aqli celiyeed Morgan baa jooga shacabka garaacay disgusting wax laga xishooda weey moogti intaad maqnayd waxa jira dad la xukumay oo dhalinyaro ah oo qaar inaan abwaanada oo dadkaas inta badan waxa loo xukumay fikradaha ay ku hadleenayaan mise dhinaca Facebook ay ku shaaciyeen saad u aragtaa xariga faraha badan sidoo hore u sheego waxaan yiri qofka waxba hayeen ka dhignay hero inta yar iska muraaqootay qabla xabxabka in horta laga dhigo hero ma inay yar baa la xiriyay inay bahal tirin ma hay weyn gudaynaga soo inuu keena achievements weyn keena laakiin inaan ku meersano inay yar iyo ma marka waxa weeye hablay caruurtii waxaan leenahay dalka waxa loo soo dhintay dhibaato loo soo maray wala isku keen xiri jiray xun kale oran jiray xabaalihii baa yaala nabadan ay haysataan laguma imanin laablaka marka iyaguna mad aragtay wali inaan yaro reexamaro inoo ooyso tii Soomaaliya wala laayo ooyso maxay naga wixii ka dheeb la micna iduguna dhalinyarada bila micna joojiya dawladuna waxaan deeyay qof bila micna oo aqli yar inay wax weyn ka dhigto
oo sharaf loo demo xarig ma biistaana haday xamar jeceshay ha joogto waxay naga soo doonaysaa halka ay ka soo haystay ma joogto ay markan ku celiya xasan Sulaymaan Haruun Galayd telefishinka Home Cable Hargeysa.